الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سو دhowaada walaalayaal إن شاء الله تبارك وتعالى waxa aynu qaadan doonaa xalqad kamid ah barnaamijkeeni al-islaamu wa binaa al-insaan islaamka iyo qaabka qofka bani aadamka uu u dhisay dhinacyada nolosha oo dhan adduunyo aakhiraba uu uga dhameystiray xalqadan إن شاء الله تبارك وتعالى waxaynu ku qaadan doonaa al-islaamu wa binaa al-ilm islaamka iyo sida uu u dhisay cilmiga iyo aqoonta qofka bani aadamka الله تبارك وتعالى وحى القرآن كي نقول شيء سببتي نبي الله آدم عليه السلام لو غفض لي ملائكته وحي أهيد علمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الله تبارك وتعالى وحى تلمام نبي الله آدم عليه السلام مركي وأبوري inuu malaa'igta ku yiri inni jaa'ilun fil ardi khalifa dhulka waxaan dhigi doonaa wakiil markaas waxay yiraahdeen mid waxaad Allah u dhigi doontaa isdilo isdibaateeya Allah waxa uu yiri tabaaraka wa tacaala waxaan ogahay waxaydan idinku ogeyn nabiyullaahi aadam alayhi salaam markuu Allah abuuray waxa uu baray asmaa al-ashjar wax walba magacooda culimadu waxay ku fasireen sida ibn Abbas radiyallahu anhum waxa ilaahay baray وحي إلهي بري أسماء الأشجار والأحجار ومنافعها ومضارها وكل شيء وحكس توتشله مقعيديسا لباتديسا وديفتيسا وحاسا إلهي بري تبارك وتعالى مركاسا ألا وحويدي نبي الله آدم وكتشوابي ملايكتي بألا ويدي وحي لدن قرن مينو مركاسا ألا يدي تبارك وتعالى ميانا لدن كورا وحي لدن قرنين بان قرن إياه علمكو ووحا لغا قفض لي ملايكتي آدم لغا قفض لي اسكد يا الله تبارك وتعالى dadkiisan caadiga uu abuurtay buu ku kala fadlay cilmiga oo kooga cilmiga la ee wax bartay ee aqoonta leh lama sina kooga jaahilka ah qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun inma yatadhakkaru ulul albab nabi maxamed waxaad weydiisaa warmay simeeyeen kuwa aqoonta leh wax garanaya kuwa aan lahayn miyay simeeyeen inta dadka la sii dhaafiyay xataa waxa la inoo sheegay xayawaankaas waxa lagu kala fadlayaa waa cilmiga lagu kala fadlayaa يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن الله تبارك وتعالى وحي كويدين وحا حلاشة وحا تلاحظة وحا إذين حلالة وحي آد كدرتان وحيوانك جوارح الله يلاحظ وح أغارة بسن كيدين كو قبانا يوكويا وحبرتين وحي آدو درتان وإذين حلال لبأي ومدنا وجاهلي هاي مدنا وحلا بري حدي الله ديره oo ay ugaar soo qabtaan ka wax la baray ugaadhiisu waa xalaal weeyaan ka aan waxba baranin ugaadhu soo qabtaan waa baqti iyo xaraan way la cuni maayo sababu tafdiilkuna waa cilmiga lagu kala fadilay kana waxba la barayo cilmigu ku socdaa kana uu iska weeraray oo iska hujuumay oo iska gaaray sida darteed baa asal weyn nolosha waxa oo cadaalada sugaya oo nolosha dhisaya oo caafimaadka ummadda dhisaya dawladnimadeeda dhisaya jiritaankooda dhisaya waxay isticmaalayaan noloshooda ugu baahan yihiin oo dhan hagaya waa cilmiga adduunyada waxa lagu kala tagay ee lagu kala dhaqaajiyna waa cilmiga weeyaan resource-ka ama hantida ugu weyn ee ummadda ay haysataana waa aqoonta weey dadkeenii hore waxay oran jireen qofka bilaa cilmiga ahina waa qof bay oran jireen qofka aqoonta lehna waa laba qof isku mid maaha qofku markuu wax barto aqoon u yeesho iyo marka kale isku mid maaha sababtaan isku mid u noqonayo waxa weeyaan maskaxdooda kala weyn waxay yiraahdaan culimadu maskaxdu waa sida baanunaadka ama baashira biibiila markastoo biibiilaha naqas lagu rido uu sii weynaada uu sii faaxa qofku markastoo aqoon qaato oo wax barto maanta baa soo bartay beritoorana taabuu soo bartay cilmigu waa yaraanta weeyaan maalinba xaraf yar baa u biiraya hadhow toolo wuxuu noqonayaa qofkan maskaxdiisu mid dhowr iyo 30 GB halka kan kale 4 GB ka tahay maskaxdiisu mesela aad bay u kala weynaanayaan isku mid maaha isku mana dhawaan karaan qof aqoon sax bartay iyo qof aan wax barani isku mid noqon maayaan iskuna tafkiir noqon maayaan isku qaab fikir noqon maayaan arrimaha sida u arkayaan isku mid noqon mayso oo isku soo ma arki karaan aqoontuna way fara badan tahay allama al-insana ma lam ya'lam Allah tabaaraka wa ta'ala insaanka wuxuu baray waxaanay aqoonin aqoonta waxa kamid ah qalinka lagu bartay qalinka loo qaato waxa kamid ah aan qalinba loo qaadan oo qofku miyiga iyo dhaqanka iyo deegaanka iyo ummadda iyo dhaqankeeda uu yaqaano waxa kamid ah qofku sidoo u baranayaba ha u bartay ama qalin ha ku barto ama tijaabo ha ku barto ama xirfad iyo sinaaca iyo farsamo gacmeed ha ku barto sidoo doona ha u bartay aqoon inuu barto oo maskaxdiisa wax ku soo kordhiyaa way ka duwaysaa
inaanu totally ba waxba baranin qofka iska fadhiya waxba baranin waxa ka cajiibsan qofka geela barta mesela ama xoolaha nool barta meesigeed iyo xilliga la lisiyo xilliga sumalka xoolaha xilliga sumalka lagu sii daayay xilliyada kala gartay waxa qofka kala yaqaana magacyadooda kala yaqaana midabadooda kala yaqaana dhaqanka xoolaha ay leeyihiin kala yaqaana uu ka duwan yahay qofka aan xataa inta garanaynin waa ka duwan sida darteed baa cilmigu meel kastuu joogo iyo nooc kastuu yahayba uu sharfan yahay cilmigu labadiisa noocba waa maxmuud uu amaano yahay hadday noqoto cilmi sharci oo ilaahay waxyigiisa la baranayo iyo hadday tahay cilmiga loo yaqaano cilmi maadi inkastoo aanu jirin wax la yiraahdo cilmi maadi aanu jirin oo sax ahayn laakiin cilmiga dunyada ka sheekeynaya isaga laftiisu waa maxmuud waa mid aad iyo aad loo amaanay labadabana waxay culimadu ku kala sheegeen inay yihiin تعلم أقوال الله وتعلم أفعال الله من راح برنيسا وقول كيله هنا وحديث وقرآن حديث صحيحة وهذا الكيله تبارك وتعالى رسول كيس وفري يوحي إلهي النبي سو كسودتشي فعل الله إلهي تبارك وتعالى فالكيس يوحي السمين والدنيا لأنه أركي إنه يعني يسلم وكلا صوت يردق حيد يبيه هيد يوبيجيد يمعدن تيد يو حنون كيد يعافمات كيد ما حسنا وحي إلهي أبو ري تبارك وتعالى in la barto lagu takhasuso oo la ogaadana waaba ilaahay diintiisiiba in la bartaana qofku caafimaad uu barto dhakhtarnimo uu barto engineering uu barto dhismaha uu barto dhaqaalaha uu barto waa diin weeyaan gaar ahaan haday niyadu si wanaagsanaato oo qofku uu niyoodo inuu jahligan iskaga rafciyo naftiisana ku anfaco umadiisana ku anfaco sida haduu si niyoodo waaba wax aad u khayr badan weeyaan oo aad u qiimo badan weeyaan cilmigu nooc yahayba الله تبارك وتعالى وحى القرآن كأنه غشة كتابة وحى لله أما قرالك فرقرالك إن يتهي علم إلى هيدا تكبره سورة البقرة آية الدين الله تبارك وتعالى مركي الله هو حكى قرأ وحى الله تلمامي أكل قرأ مما علمه الله فليكتب حقرأ وحي إلهي براي كتابة مركي إلهي بدت كبره وعلم إلهي تبارك وتعالى إن تصدق الله قرب برته حروف تسوق يسوس وقرميان قرته قرارك الصح ضايع قرارك غلط كأكل قرته وعلم إلهي وعلم إلهي أدومه سوف ريان سيدا درت بمهم تهي قفكو إنه برته وحلالي وحي وبرن كريو النافعة وحتريا أولادنا أي تهي وحي إنه بري كرينا بقى إنه برنو وقلت بان رنتي وأركا أنا جو شخصي أهان دوانا صدق تهي مركز علمي قول عضو إن قفكي وحجار الله برا لا كان وما بهنا كانوا وبهي تصال أهم والدك قاركود إلى هذا دتك الشيخ يا وضع نقل معيانه قرآن كونير جي أو خلاص إسكول دي عالم كيسا هبرت وارنا صح هاي ويان قفكو كمان مارمي باك جراوند ديني وناكسن منهج كادوكسي كسر لجنايو منهج لم يده الديني إنه برت أما كسر ريبة وكوين والديني وأحكام شرع الله وكتابه ورسوله أحكامتي الله الدين تيسي يحديثك وبرتو شرعي وفهمه وارن آذ قالي أويا الدنيا ورنا محي سوسي دهدان وانت فهم سنين sidoo kale waxa iyaduna qalad cagsiga dhinaca kale in la yiraahdo caruurtu xer ha wada noqoto oo madrasada iyo masaajidka iyo darsiga masaajidka yaani dhaafin wixii kalena loo arko waxay ku fitnoobayaan ku baabaayaan ku balanbalayaan oo diintoodii ay ku seegayaan arinta lafteedu waa qalad weey sax ma aha tarbiyada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee guriga laga soo siiya qofka haga isaga background u noqdo oo ama uu kaluma ama uu ku wanaagsanaada sidoo kale mas'uuliyadda waalidka saaran ma aha qofkani hadhow toolo ma hagaagsanaan doona mise hadhow toolo u lumi doona taadiga waxba kaama gelin mas'uuliyad ku saaran ma adiga mas'uuliyadda ku saaran waxa weeye ilmahan si wanaagsan aad u barbaariso ilaahay kugu og yahay diintiisa iyo duniyadiisa aad barto xilli wanaagsan oo qaan gaar ah soo gaarsiiso halka markuu soo gaaro faataxa adiga waa ka madax banaaya quraanka miyaanad ogeyn in la inoogu sheegay nabi gaal dhalay oo inankiisii la aabo raac nabiyullaahi nuux alayhi salaam aaba kaale waa halaag ilaahay baa meesha ka socda iskaga soo carar isna wuxuu leeyahay saawi ila jabal yacsimuni min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ila man raxim waxaala baynahuma almawj fakana min almuqraqiin waraaba maanta meesha waa lagu halaagsamaya ka soo kac buu leeyahay isna wuxuu leeyahay buurahan ka fuuli doona biyaha jeegaysa iska soco aaba ilaa mawjadihii biyuhu ay soo dhex galeenoo ay inankii markaa ay qarqiyeen marka ma waxaan raahnaa nabigu kuma dadaalino diin uma sheegin dabcan uu sheegay laakiin qof weyn buu ahaa mas'uuliyadiisa isagu go'aankiisa leh awlaadda niyadda aan ku barbaarinna waa sida iyo tarbiyadda aan iyaga siinayna xataa inagu mas'uul waxaan ka nahay intaanay qaan gaadhin in diintooda barno dhaqankooga barno diinta u sheegno wanaajino dariiqa saxda ku hagno maalintu qofku qaan gaadho mas'uuliyadiisa isaga leh
hadduu naar doonanayana isagaa leh hadduu janno doonanayana isagaa leh sidaas bay shareecadu inoo sheegaysaa waa mukallaf buu noqonayaa waa maxay mukallaf laba wasfi buu koobsanayaa albaaligu walcaaqil wuxuu noqonayaa qof caqli leh qaangaadhna ah oo mas-uuliyaddiisa isagu xambaarta buu noqonayaa xagga kale waxaa laynoogu sheegay oo qur-aanka aynu ku haynaa welad aabihii gaaliya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam aabihii buu ku leeyahay abati laa tacbud الshayطaan ina الshayطaana kana liraxmaani casiya aaba shaydaanka ha caabudin ilaahay ka yaabo kaale iimaankii islaamnimada qaado markaa qofkii uu dhalay inuu isaga koobigiisa ahaadaa shardi ma aha ilaahay tabaaraka watacaala mararka qaarkood buu yukhriju alxaya min almeyit qof nool oo wanaagsan baa wuxuu dhalayaa qof dambas ah sidoo kale cagsiga yukhriju alxaya min almeyit mid dambasana ilahay wax nool buu kasoo saaraayo dad iyo dunyaba anfaca marka arintaasi waa arin ilaahay tabaaraka watacaala u taala qofka masiirkiisa iyo aakhirkiisa dambe muxuu noqonayaa laakiin inaga mas-uuliyaddeena saaran waxa weeye qofka inaan barno diin wanaagsan oo uu ku tanaado oo background fiican u noqota iyo sidoo kale wuxuu dunyadiisa iyo ummadiisa kaga shaqaysto uguna shaqeeyo oo ku anfaco oo isaga iyo inta ku xeersanba u anfaco qaabkaasi waa qaabka uu islaamku u dhisay cilmiga bal islaamku aad buu u ganaaxay in arrimaha lagu dhexgalo si jahli oo cilmi ah bilaa cilmi ah ninba madaxa nabar ka gaadhay nabigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam goor dambe oo intuu su-aal weydiiyey buu ku yidhi sideen weysadii iyo cibaada maydha bay ku yidhahdeen war madaxu nabar igaga yaalla war kale ma hayne biyo isku shub biyihii buu isku shubay biyihii baa daloolkii madaxa galay uu dhintay ninkii nabigu aad buu uga cadhooday calayhi salaatu wasalaam alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu waar miyay dadka wax garanaya wax weydiiyaan haddaanay waxba garanayn waliba riwaayaadka qaarkood nabigu waa habaaray qataluuhu qatalahum allah allaha nacdale ninka way dileen miyay dadka wax weydiiyaan haddaanay iyagu waxba garanayn jahliga waxaa u dawa-a su-aasha iyo cilmiga oo la barta baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam sidaasaa loo baahan yahay qofku inuu cilmigiisa maalinba maalinta ka dambeeya dhiso adduunyadana qofka qiimihiisa wuxuu bataa mar kasta oo cilmigiisu bato ma jira wax la yidhaahdo heer cilmiga lagu dhameeyo ama la qalin jabiyo maalin kasta daqiiqad kasta saacad kasta waxa suurtagal kuwa inaad wax barato aqoontaada kor u qaado hore u socoto aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu